marka laga shanqariyo magaca dalka Koonfur Afrika waxaa markiiba maankaada ku soo dhacaya dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee Soomaalida lagu geysto iyadoo dad badan oo Soomaali ah oo adduunka meelo kala duwan ku nool ay aaminsan yihiin arrintaasi iyadoo bishii la soo dhaafay ee Maarso tirada dhimashada lagu sheegay 14 qof 30 dhaawac ah boob hantideed oo aan weli la tirakoobin Sheekh Cabdirashiid Caafi oo kamid ah dadka oo leeyahay xuquuqda Soomaalida Koonfur Afrika ayaa wax ka weydiinay sida lagu hortagi karo dhibaatada joogtada ee lagu hayo Soomaalida isagoo sheegay inay wadaan dadaalo dheeri ah in cabashooyinkani u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka Koonfur Afrika alxamdu annaga haddaan community-ga ama Soomaalida dadka xuquuqdooda u doodo waxaan sameynay isku يعني events man mataqaana waxyaalo fara badan on xataa waxaan sameynay council ama advocates waxa la dhaho niman lawyer ah yaan mataqaana sameynay oo leenahay xuquuqda Soomaalida aan dadka mataqaana refugee-ga ee ku ganacsanay tawshiga difaaca macni wayna naga ogolaadeen alxamdulillah sidoo kale waxyaabaha sababa dilalka joogtada ah ee Soomaalida lagu hayo ayaa wax ka weydiinay qaar kamid ah aqoon-yahanada iyo odayaasha dhaqanka iyagoo si isku mid ah ugu jawaabay isla markaana sheegay inay sabab u tahay goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida kuwaas oo ganacsiyo muhiim ah ka furanaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Sadeexan waa Cabduqaadir Maxamuud Cali daandey horta midda koowaad Soomaalidu waxay degaan meelaha qaar oo nabad ka jirin oo aysan jidna ku aalin ayadoo taasubadaydo ayagoo awoodi karin inay degaan meelaha qalo internationalka amba jidka lagaaga soo gudma karo taasoo markuu koowaad waa dad yani bahala culeena oo god u galeen dad cadaawo ah amba yani dad oo criminal oo dambiilayaal ah midda koowaad horta waxa uu sababa Soomaalidii oo awoodi kari weeyay inay degaan meelaha taawga ah amba oo istiraatiijig ah oo hadii la dhihi lahay waa nabad horta meelaha ay galeen kama ayna fiirsan oo ma ayna dhihin meeshan maxay tahay marka waxa weeye meelaha bahal la galeenka ah ayay waxa weeye horta hunguri ka dooneen marka waxa weeye meelaha ay Soomaalidu hadda ay gashay waa meelaha bahal la galeen oo aad dhibaato badan oo dadka hadda ay hataa nacfiga ay ka raadinayaan haddaad aragtay meelaha ay ku jiraan aad ma aragtay aad naftaada ugu hanan karin waxaa jiray dadaallo ay sameeyeen ururo jaaliyadeed ee Soomaalidu leedahay kuwaas oo ku guuleystay inay cadaaladda hor keenaan dhagarqabayaal kuma may dhiiga Soomaalida waxaana kamid ah jariida Rustenburg iyo Tansaas ee gobolka Eastern Cape iyo Western Cape halkaas oo dambiilayaal lagu xukumay cimrigaada ku furto inkastoo dhibanaasha Soomaalida aysan jirin wax u dooda inta badan kuwii dhintayna aysan doodi karin haddana waxaa jira dhibanayaal iyagu doodaya oo dacwadooda socoto oo aad u dhiiran sida uu sharxayo isku xiraha jaaliyada Soomaalida ee South Africa Xadiis Xaaji Aadan ardayasha Soomaalida jaaliyadaha ururada bulshada dhamaantood dadkii ay dhibaatadu taabatay tuulooyinka ku jiray waxay ka midaysan yihiin oo shir laga galay sidii nimankaas hadayna u soo bixi lahayn oo cadaaladda ay u face garay lahayn ama cadaaladdu ay wax uga qaban lahayd oo maaragtay inta xukunkooda la gaarayo waa lagu jira hawshaas runtii dadka ku jiraan kamid ahay dadka Soomaalidu way u midaysan yihiin uma kala maqna barnaamijkaana wuxuu mideeyay Soomaalida dadkaas ayaa waxaa jiray ballanqaadyo waaweyn oo safiirka Soomaaliya ee South Africa sameeyay walow safaarada Soomaaliya ay ka dhabeysay ballanqaadyadaasi qaarkood isagoo safiirka Soomaaliya ka qayb galay muwaadin Soomaaliyeed ee lagu aasayay magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape halkaas oo safiirka marka laga sheegay inuu u doodayo xuquuqda Soomaalida Koonfur Afrika ee lagu dilayo isla markaana lagu boobayo hantidooda anigoo ka wakiil ah qaranka Soomaaliya 60 jir baan ahay waxa ii dhiman baa iska yar waxaan igu ballan ah oo ilaahu adaa in maqlaaya aan wajigaaga ka hor sheegaya in ummadan sidan u baaba'sano oo kulligooda wada dhaawac iyo boogta korkooda ku taalo dadkooda kala go'ayo qalbigooda ma taqaana dhibaato ku dhacdayo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo ma taqaana heybadooda dhulka lagu jiiday inaan hortaadan ka sheegay cadaalad aan ku maamula si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaalida Koonfur Afrika ayaa ah mid jahwareer ah iyadoo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku nool yihiin cabsi iyo hubanti la'aan mana jirto ilaa hadda cid wax ka qabatay in ka badan 1,000 qof oo lagu aasay dalka South Africa Maxamed Deeq Muusan Nuur Deeq Darajo Universal TV South Africa